العشر الأواخر طبعا كالضمبة نبي عليه الصلاة والسلام حوق بنشري يسألوا عبادة استاه يين اللي سجوع العلي يسأل قلبي جودكته أما يعملوا النقطة طبعا كان عشر رمضان توجد ضمبية حين نقول بشهر رمضان إنه هاي بشهر وقفض بدن سنتك إسلام مركا وحين نقول هاي طبعا كهبينا وجود ضمبية أنا إن رمضان وقصي فض بدي يعني علماء وحيد هذا سنة كوردن مركا الله يسقط داره هدي طبعا لقيمة maalmaha markay tahay bay culimadu yiraahdaan tobanka maalmood ee dilxijaba ugu fadli badan habeenada markay tahayna bay yiraahdaan tobanka habeen ee ramadaan baa ugu fadli badan marka tobankan cashe ee ramadaan ugu dambeeya habeenadeeda ayaa waxay yihiin tobanka habeen ee sanadka oo dhan marka la isku daro ugu fadli badan haddana waxa ku sii jira habeenka de sanadka oo dhan marka la isku daro isaguna ugu fadli badan idan waa bishii u fadli badnayd iyo tobankii habeenee sanadka ugu fadli badnaa iyo habeenkii sanadka oo dhan ugu fadli badnaa oo tobankan laga dhex filayo ayaa jira haddaba hadyigii nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo dhaqankiisu muxuu ahaa hadyiga nebigu inuu ku dadaalo calayhi salaatu wasalaam ku saliya nebiga inuu ku dadaalo daacada iyo ilaahay u dhawaanshiyihiisa si aanu ugu dadaalin habeenada kale sanadka oo dhan yani tobankani way uga calaamadsanayeen marka la eego sanadka kale sanadka oo dhan intiisa kale saawgeed bay imaamu muslim xadiidka soo warinaya umulmuuminiin caaisha radiallahu canha waxay leedahay kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam yajtahidu fi lcashri alawaakhir ما لا يجتهد في غيره وها النبي محمد عليه الصلاة والسلام طبعا كهبين وقدم بيا بشهر رمضان مد داله سيانو دال سنة كينتي سكال أوردر إذا طبعا كان هبين وحقفك مسلم كيوبا هي أود وحليه هي أوردر يرغن ما يتمر يحوق بقى إن تسجد جيسو طبعا كهبين عبادة دولة ولبا عائشة وحي لدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام وحكمدها حديث الصحيحين كورينيان كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله إمام مسلم من الرواية دي سوحي زياد نساء وجد وشد مئزره عائشة وحي لدي النبي عليه الصلاة والسلام تبكنا بيدا هدا يوصل قلان guntigu dhiisha iskaga dhigi jiray halkay Soomaalidu tiraahdo guntigu adkaysan jiray habeenkiisana wuu nooleyn jiray reerkiisana wuu toosin jiray bay Caaisha leedahay haddaba isagoo nabi maxamed markuu horeba cibaado badnaa calayhi salaatu wasalaam oo habeenadii siduu u tukanayo gumadu barari jirtay oo ay Caaisha ku lahayd ilaahay rasuulkiisiiyo adiga dambigaagii hore iyo kii dambaba waa la dhaafay maad naftaada sidan ka daysid maad nasatid oo kale aw laha haddii ilaahay dambigayga dhaafay miyaanan noqonaynin addoon mahadnaqa iyadoo dhaqankiisu uu kaa ahaa ayaa haddana tobankan markay soo gaadho arrinku uu ka gedisanaa habeenkiisa wuu nooleyn jiray baa la yidhi Caaisha ayaa waxay leedahay xadiidka Nisaa'i warinayo لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح ولا صام شهر رمضان كاملا ولا صام شهرا كاملا غير رمضان ما أجيب يده تري النبي عليه الصلاة والسلام وهبين سيدو ودي كسو ودي شيدي عباده أما قرآن كهبين قرآن دميي أما بالآن بشهر رمضان هين وضع الصومي قرن ما يبيلاد مركا أحيا الليلة كل محل لوغا جدا الروايات كقاركود وحي تلمامين من هبين كنا نولي جري لكن علماء وحي ليهين غالب الليل هبين كأنت أغب ضله
ayuu habeenada noolayn jiray. horta in habeenkii la cibaadaystaa iyadu de waa calaamadaha nebiyada iyo dadka saalixiinta ah. ilaahay muxuu quraan ku tilmaamaya tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca wa mima razaqnaahum yunfiquun. dhinacooda dhulka ka dheeraada baa ilaahay leeyahy iyagoo rabbigood baryaya u cibaadaysanaya oo cadaabkiisana ka cabsanaya iyo ciqaabtiisa, naxariistiisa iyo jannadiisana hunguri ka hayo, ayaa dhinacoodu dhulka ka dheeraada baa ilaahay leeyahy. waxaa ilaahay qur-aan ku tilmaamaya dadka saalixiinta ee jannada gala ina almuttaqiina fii jannaatin wa cuyuun. qoladaa maxuu yahay calaamaadka lagu yaqaanaa? innahum kaanuu qabla dalika muxsiniin baa la yidhi. waxay ahaan jireen calaamaadka lagu yaqaanay waa kan adduunka markay joogeen dad ixsaan sameeya bay ahaayeen. kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun baa ilaah yidhi. habeenkii in yar bay seexan jireen. wabilasxaari hum yastakfiruun. waqti suxuurka marka la gaadhana istikfaarta bay bilaabi jireen. wa fii amwaalihim xaqun lisaa'ili waalmaxruum. hantidoodana xuquuq bay ku lahaayeen go-anba kuwa wax weydiista iyo kuwa wax mahaysatada ahiba. idan asliyan ayuu habeenkii in la tukadaa waa dhaqanka nebiyada, waa dhaqanka saalixiinta, waa dhaqankii saxaabadii. ilaahay saxaabada markuu ammaanayay muxuu ku ammaanay? muxamedun rasuulu llah waladiina macahu ashidaaءun cala alkufaari ruxamaau baynahum taraahum rukacan sujadan yabtaguuna fadla min allahi waridwaana siimaahum fii wujuuhihim min athari sujuud. salaad badni baa ilaahay ku ammaanay. salaad badni ayaa lagu ammaanay iyo muslimiinta inay u naxariistaan gaalkana iska dhiciyaan. waa calaamadda lagu yaqaano dadka raba maqaami alambiyaai waashuhadaai wasaalixiin inay gaadhaan. iraaye nebiga calayhi salaatu wasalaam u shaqeeyey ee uu nebigu isyidhi u abaalgud. nebigu calayhi salaatu wasalaam cid kastoo wax u qabatay wuu u abaalgudi jiray, abaallaawa maahay. dabeetana wiilkiibuu u yeedho wuxuu ku yidhi war wax weydiiso, salni wax weydiiso aan wax ku siiyey. wiilkii yaraa wuu soo fekeray. dadkan hamadoodu siday u sarraysay bay tilmaamaysaa iyo waxay raadcaynayaan wuxuu ahaa. waa nin dhallinyaro ah oo nebi maxamed u adeegaya, laakiin hamigiisu adduunkan wuu ka weeye. adduunkan dhammaantii kuma fillaa. hamigiisu waxa weeyaan janno. jannadana xagga hoose ma rabo, wuxuu rabaa janno meelo sare, nebiga meeshuu galaya iyo agagaarkeeda inuu joogo. dabeetana wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiya waxaan rabaa muraafaqataka fi ljanna. jannada inaan saaxiib kugula ahdo. adduunka waa kana waa kugula saaxiib oo kula joogaayo, aakhirana jannada macaaga inaan noqdaa baan doonaya. ninka hungurigiisu halkaa joogo camalka la yidhi waad ku gaadhaysaa waa maxay? nebigu wuxuu ku yidhi faacinnii calaa nafsika bikahrati sujuud. waxaad iigu gargaartaa haddaba haddaad kaa raadcaynayso adiguna sujuudda badi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. sujuuddaadu salaadkaagu ha bato. idan axya leyla marka la yidhaahdo fii ramadaan, hadduu markii horeba nebiga sifadiisu caynkan ahayd ou salaadda saa u tukan jiray, ramadaan markay timaaddo ee weliba laysii timaaddo tobanka dambe waxaa la yidhi tobanka kan axya leyla. habeenkii buu noolayn jiray. qaabka uu noolayn jiray isweydiinle marka la yidhaahdo awalba waa noolayn jiraye noolayntan gaarkee tobankan lasii sheegaya sifadeedu qaabkuu noqonaya markaa. awalan fi shariica salaatu leylka in xagga hore laga tukadaa way bannaantay oo qofku intaanu seexanba inuu iska tukado maca witirkiisa. waxaa bannaan saaqda dhexe inuu soo kaco tukado. waxaa bannaan salaada subax ka hor inuu kaco oo tukado. idan awalka iyo wasadka iyo aakhirka intuba waa bannaantay. waxaana la yidhahda nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaad raadacayso habeenkii wakti kasta wuxuubaad arkay isagoo taagan, haddaad doontana wakti kasta isagoo hurdaad arkay. yacni waa isbedbedel. intaba wuu samaynayay nebigu calayhi salaatu wasalaam. laakiin culammadu waxay idhaahdaan qofka muqiimka ah ee mustatiica ah, qofka degan ee awooda
waxaa u fadli badan xagga dambe ayaa u fadli badan wixii nusleelka ka dambeeya ayaa u fadli badan bay yidhaahdaan waatii cumar laga sheegaya atarka walatii yanaamuuna canha afdalu dee ilaahayna qur-aanka walmustakfiriina bilasxaar wabilasxaari hum yastakfiruun baa ilaahay tilmaamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam siduu u tukan jiray caaisha saa xadiidkii aynu soo sheegnay ku tilmaamtay waxay leedahay anigu maana arag ramadaan iyo kayrkee toona isagoo maxay 11 ragcadood ka badiyey laakiin 11 ragcadood ee nabigu cayn ka yahay innaga haddaad tidhaahdo qof 11 ragcadood baa la tukadaa dee 10 daqiiqo kaga soo baxaya kama qoladeenna fogaysa ee tidhaahda waynu tahajudaynaa waa dheeraynaynaa dee hal jisu baynu akhrinaa socay kama caaisha waxay leedahay abi salama ibnu cabdiraxmaan ayaa wuxuu weydiiyey caaisha kayfa kaanat salaatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam fii ramadaan nebiga salaadiisu ramadaantii sidee ahaan jirtay caaisha waxay ku tidhi ma kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam liyaziida fii ramadaana walaa fii gayrihi calaa 11 ragca ramadaan iyo kayrkii toona 11 kamuu badin jirin aynu sheegi riwaayaad kaloo sheegaya 13 iyo wax la mid ah 11 kamay badin jirin bay xadiidkan caaisha ku tilmaamtay laakiin siduu u tukan jiray isweydiinta leh waxay caaisha leedahay yusalli 4 laa tas'al can xusnihinna wa tuulihinna 4 buu tukan jiray iyaga hay weydiinin bay tidhi quruxdooda iyo dherarkooda hay weydiinin quruxdooda iyo dherarkooda hay weydiinin oo waxaa la yidhahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay caaisha leedahay xadiidka horta dhammeeyo uma yusalli 4 buu haddana tukan jiray laa tas'al can xusnihinna wa tuulihinna uma yusalli 3 bay tidhi dabeetana 3 buu tukan jiray xadiidku intaa uu ka rooyey mukhtasar shamaa'il buu imaam ilalbani ku saxiixinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam bal qirada waxaa kaaga filan xadiidkii xudayfa iyo ibnu mascuud iyo axaadiistay warinayeen habeeninu salaad isu taagay dabeetana ay ku xidheen saxaabi baa ku xidhay dabeetana albaqruu bilaabay buu yidhi markaasaan sidhi buu yidhi dee kolle 100 meelahaas markuu gaadho ayuu dhammayn doonaa albaqraba waa dhameeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam albaqri waa 2 jis iyo dheeraad 286 aayadood waa dhameeyey kadib aan sidhi buu yidhi hadduu rukuuci markaasuu bilaabay buu yidhi suuratu nisaa haddana markaasuu dhameeyey markaasuu dib u soo noqday nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu haddana aali cimraan bilaabay markaasuu dhameeyey waa ragcad maaha 11 kama warramayno waa ragcad buu akhriyayaa maxay 5 jis iyo dheeraad caaisha waxay leedahay kaana yasjudu sajda qadra maa yaqra axadukum 50 aaya sujuudda nebi maxamed waxay ahaan jirtay bay leedahay inta midkiin 50 aayadood ka akhrinayo hadda jiskuba waa ilaa 140 aayadood meelaha maalan jiska albaqri 150 iyo wax ka yar dadmiinis waxa weeyaan thuluth jus inta laga akhrinayo 50 aayadood inta la akhriyi karo ayuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sujuudiisu ay ahayd sideedaba salafu saalix saxaabadii iyo nebiga iyo dadka wanaagsanaa wardigooda iyo qur-aankooda iyo salaad akhriskooda way isku dari jireen in badan oo ka mid wax lagu wardiyo maxaa u badan oo u fiican subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar soo maaha salaadana acmaasha la qabto 3 tan iyo qur-aan baa u fiican wax lagu wardiyo soocayka maaha salaaduna intaasubay ka koobantay allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar maanta dhan waad wadaysaa soo maaha dee rukuuc iyo sujuud iyo ictidaalla maxaad samaysaa subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim samic allahu liman xamid intaasumaad wadaa tasbiixaad iyo taxmiid iyo takbiir ayaad salaada wadaa iyo qur-aan la akhriyo waa wardiga ugu fiicnaa oo ficil salaadeedna ah wardigaasoo marna lala rukuucayo marna lala sujuudayo weeyaan salaadu sida awgeed nabiga calayhi salaatu wasalaam
toddoba wuu tukaday oo sagaal buu tukaday oo koob iyo toban buu tukaday oo saddex iyo toban buu tukaday oo ka yar buu tukaday laakiin lama soo naqlin saddex iyo toban wax ka badan oo isagu tukaday laakiin dee salaadihiisu kuwaasay hayeen haddaba culimmadu waxay leeyihiin sheekh mustafa alcadawi wuxuu soo naqlinaya waxay culimmadu yidhaahdeen buu yidhi sifadu hadday nuqsaan inaga gashay cadadka waa lagu kabi karaa mu fiirso erayga haddii adigu koob iyo tobankaagu aanay la mid ahayn ama la nooc noqon haddaad horta kuwii nebiga u ekaysiin karto cadadan wa sifatan iyadaa fadli badan cadadan wa sifatan tira ahaan iyo sifa ahaanba haddaad sunnadii nebi maxamed raacda calayhi salaatu wasalaam iyadaa fadli badan culammadu waxay idhaahdeen haddaad sifadu kaa gaabato oo aad intii sujuudnaan kari weydo ama qur-aanka intii akhriyi kari weydo waxaa lagu kabi karaa bay idhahdeen ragcadahoo la badiyo oo xaggay ka keeneen waxay yidhaahdeen cibradu waa zamanka aad cibaadaysanaysee cadadka ragcadda maaha bay dhaheen u fiirso erayga falcibratu bizamani alqiyaam walaysat bicadadi rakcaat bay idhahdaan meesha danta la leeyahay waxa weeyaan imisaad ilaahay hortaagnayd ee maaha imise ragcadood baad tukatay waxaa dhici karta qof 7 ragcadood ilaahay hortaagnaa inuu ka badan yahay 20ka tukatayba waxaa dhici kara qof 9 ragcadood tukaday inuu ka badan yahay intuu cibaadaysanayay maxay intaad adigu tukatayba cibradu bay leeyihiin waa zamanka ma maxaa daliila waxay yidhahdeen waxyaabaha ku tusiya waxaa ka mid ah ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay qum alleyla yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliilan nisfahu aw inqus minhu aw zid calayhi warattil alqur'aana tartiila waxaa lagu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam habeenkii istaag in yar mooyaane nuskii istaag ama wax yar ka yaree ama wax yar ku dar warattil alqur'aana tartiila aayadda dambe ee nasakhday aayadda say culimmadu sheegayaan maxay sheegaysaa ina rabbaka yaclamu annaka taquumu adnaa min thuluthay alleyli wa nisfah wa thuluth idan cibradu waxay leeyihiin waa zamanka waxaa kaloo taa caddaynaya bay leeyihiin xadiidkii sheegayey saxiixeynka ku yaalay ee sheegayey maxay salaada ilaahay ugu jeceliyay salaatuleylka awalan marka faralka laga yimaado dee salaad la tukado salaatuleylka u fadli badan faralka marka laga yimaado oo waa kii nabigu laha calayhi salaatu wasalaam bacda almaktuuba waxaa ugu fadli badan le maxay salaatuleylka salaatuleyladuna way kala fadli badantae keeba xagga alle loogu jeceliyay tii nebi daa'uud buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa axabu salaati ila allahi salaatu daawuuda calayhi salaam salaad la tukadana waxaa loogu jeceliyay baa la yidhi tii nebi daa'uud uu tukan jiray nebi daa'uud muxuu tukan jiray kaana yanaamu nisfa alleyl habeenka inta hore waa iska seexan jiray waataynu leey xagga dambe la tukadaabaa fadli badan laakiin waa bannaantahay xagga horena in la tukado saan aynu taraawiixda u tukanoo kale taraawiixdu waa salaatuleyl la qadimayo kaana yanaamu nisfa alleyl habeenkii nus buu seexan jiray wayaquumu thulutha 3 meelood oo meel wuu taagnaan jiray wuu tukan jiray wayanaamu sudusa sudusna sudusku waa 6 yacni 6 meelood haddaad u qaybiso habeenka 6 meelood haddaad u qaybiso 3 meelood ugu horeeya wuu seexan jiray 3 meelood ugu horeeya waa nus markaa 2 meelood ku xigana wuu taagnaan jiray halka meel ugu dambeeyana wuu hurdi jiray tusaale haddaad tidhaahdo habeenku maalan haddaynu idhahno habeenku waa 9 saacadood 9kaa saacadood 4 iyo badhka hore wuu hurdayaa kow waa nuskii thuluth buu haddana soo jeedaya 9 saacadood thuluthkooda waa maxay waa 3 saacadood 3 saacadood buu haddana tukanayay kadib buu haddana suduska dambe waa maxay waa saacad iyo badh marka 4 saacadood iyo badhoo horuu seexday 3 saacadoodoo dambuu taagnaa saacad iyo badh dambuu seexday habeenkiisi 6 saacadoodna wuu hurday 3na wuu taagnaa weeyaan habeenkiisi 9 saacadood ahaa 6na wuu hurday 3na wuu taagnaa idan culimmadu waxay leeyihiin xadiiskan iyo aayaddan qur-aanka markaynu eegno waxaynu ka fahmaynaa cibrada meesha lagu xisaabtamaya inuu zamanka iyo inaan ragcada ahayn dhalinyarada dambe fuqahada qaarkood iyagoo raacaya waxay 11 hal la tukado laakiin dee 11 birbir haddaad tukato ma aha 11kii wasniga samaynayay 11kaagu 3 saacadood ama 2 saacadood may qaataan
إلهي القرآن كما قلت المامي كوا إلهي ستا قوحل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما آناء بالوت المام يعني ساعات الليل هبينك ساعة دي ستاقا ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولذلك روح كسر نغلنا إياه الشيخ مصطفى العدوي ابن تيمية أما ابن الحجر العسقلاني شيخ الشافعية ده أن النقص في صفة القراءة يزداد في عدد الركعات بإله قراءة هذا كوبناته حافظ متيد أما بعد حنوصن سايوين بدل ما تاجنان كرتي أما واد ضعيف بات واد قبو دايوين بدل ما تاجنان كرتي شفتوا dadkii dhallinyaranimadoodii ku train gareeyay taagnaan jiray iyagoo gaboobay ba taagnaadaan culimada muslimiinta qaar baad arkaysaa 9 jiraa aan arkayay ramadaanta mid tukanaya taraawixda 104 jiray ul yar buu ku taagay ul buu haystaa halay sheegay ahad ulama Mauritania ma kici karo salaada marka la tukanayo baa leeyahay laba inana uu dhala garba qabta dabeetana waa la taagaa waa la sii daayaa marka salaada intuu tukanayo dhan caad uu wada markay salaadu dhamaataabo isku dhacaya hadana yani ilaahay baa uu xoojiyay inaanu salaadii uu sidii u taagnaa jiray inaanu ka daciifin hatta isagoo gaboobay oo kici kar loo la kicinayo hadhow inta salaada uu ku jiro isaga kackaaya cidina kicin mayso markay dhamaatana uu isku dumayaa baa leeyahay idan haddii si uun ay dhacdo tamartaadu inay keensan weydo inay qiraa'aadkaagu dheeraadaan waxay culimmada tani leeyihiin ragcadahaad badsan kartaa haba gaagaabnaata ragcadaadii 10 daqiiqaba ha qaadatee ragcadaha maxay badi bay leeyihiin ibn abdilbar العلامة ابن عبد البر وحابو كسر نقلنا يا إجماع الشيعية مسألة أجمع المسلمون على أنه لا حد لأكثر الركعات في قيام الليل بكسر نقلنا والله أعلم إجماع السوا صحيح صددوا نبي عليه الصلاة والسلام isagoo salaadihi suba dheeraayeen marka horeba salaadihi soo dheeraayeen kuwa sunnayaasha uu tukanayo aynu ka warramayna waayo sunnada tan qofku waa amiirun calaa nafsi cidna kuma xidhna cidna qasab maaha dadkuna waa iskaga tegi karaan qasab maaha laakiin isaga siisa u tukanayay إذا النبي عليه الصلاة والسلام وحاول بدنا لقى الشيء إنه تكذب وصدح يطبع سيدي عائشة بن عباس زيد بن خالد الجهني ما حاصله وحو شيء ما كان سكودر ضرب شيء يعني صدح يطبع ما لقى الشيء لما توحد هذا كوبي يطبع بي عائشة حقها كل شيء يسوق كبدي ما أنا صدح يطبع نوال الشيء وهي المام سابي لين لقى بديه وحكى له شيء غير علماء حديث شيء شيء صلاة الليل مثنى مثنى النبي قال كوري مفتوح بكره صلاة هبيكي والله 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 بابا لو تكنيا إيه هداد وبرجع كعب ستين وكسوق قاعدة وصادوا وضل والله بضاضة فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة من النبي هل حبوا كوي ترصق النبي يقول لا يصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد متكين هاتو كذا أنت نشيط كي هي أنتو فرعون هي marka daasha iska fadhiisaa lagu yiri ninkii doonay maqaamka anbiyada inuu ka daba tago a'inni ala nafsika bi kathrati sujud buu nabigu yiri sujud badni igu kaalmee man qama ma'a al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyam al-layl ninka imaamka la tukada la yiri illa intuu ka baxay ka dhamaynayo dadka badba imaamka intay bartanka ka tagaa ilaa dhow ma tukanayo waxa kaaga fadli badan adigoo la dhameystaa هذا هذا دون سو حد دون ستكون لكن إمامك هكتير لا دميسو وهذا ويترصد محد ليس لا بأس لا ويترصد هذا صلاة بلا وتر وتكو إذن أيها الأحبة علماء دبر والصغير سند حادثة الشيعية أبي بن كعب إنه كوبية تبنتكية إنه صدح يلا ما تنتكية هو الصغير قصده الشيخ الألباني يسوي صدح يلا ما تنقض ضعيفين أيوه أو كوبية طبعا كلها صحين أيوه لكن علماء كلهم محدثين صحين يسا أوله لبضبة وثابت إذا نحن لا نهاية نبي عليه الصلاة والسلام أصلا بقى
habeenkiisa si fiican buu u tukan jiray laakiin waxaa la yidhi ramadaanka siiba 10ka dambe waa noolayn jiray baa la yidhi wax lagu nooleeyo waxa ugu fiican salaada waayo salaadu hadday kuwii nebiga u ekaato waxay kulansanaysaa qur'aan akhriskii tasbiixdii taxmiiddii tahliishii wixii loo baahnaayo wardiyo dhan baa ku jira iyada wixii loo baahnaayo oo dhan oo wardiya ayaa iyada ku jira wax lagu nooleeyo markaa salaatuleylka u fiican haddaad isku kalsoonayn oo isleedahay war xagga dambe waa kaa tegi doontaa xagga hore ka noole haddaad raganimada isku og tahay oo intaad maalintii u seexato aad isleedahay habeenkii waad kici karaysaa habeenkii noole habeenkii intaad tukan kartaba tuko ha isku yaray nabigu calayhi salaatu wasalaam habeenkii wuxuu kaloo samayn jiray salaatuleylka reeraana wuu kicin jiray alaa taquumani fatusalliyaan buu ku lahaa cali iyo faatima واتن عائشة كتل مامسة ويوقظ أهله أهل كي سنوات وسنجري وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها إلى هنا قرآن وكتل مامي أهل كاغا صلاة فرض وكل صبر له إذن أيها الأحبة هبين بالنبي عليه الصلاة والسلام صوت وصيبه ومسلم ملاذي يسقوا أرقق أحسن قال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الخزائن وماذا أنزل من الفتن سبحان الله ابن نبي لي عاوم حاء خزندها إلهي نمعوين لقى سودكي محا فتن سودكي وريات وسيا ابن نبي لي قريها كم قوة كتشنا وهوين كسبوا التلمام يا قريه بساكس وكوحي الراية صواحب الحجرات يا توسيا ابن نبي عليه الصلاة والسلام لكي يصلين سيئتك كذلك وايو رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة أبو نبوي لا أركاه من الدنيا مريه هو وأسطرا وآخرة قاوم أبو نبوي عليه الصلاة والسلام أدوك قفي عن الله يقانا بساط الله يقانا لكن آخرة مرك الله تقوه أن وحبا مال أوني إذا وحلاني واختي هذا كلام النبي قوة توسينشري هوان كيسة إني صلاة كدان لكن طبعا كان هبين سيجارو توسينشري ويا وهي عائشة حديث كاكو تلمامسي وشد المئزر شد مئزره حلو قتشيدا قنت قوات كي سنشري لما معنى علماء ويسارا إن إليه وكناية عن الاستعداد للعبادة والاجتهاد فيها زيادة على المعتاد ومعناه التشمير في العبادات يعني إن لا وكناية وصربيب لقت الماميو sida uu cibaadada ugu dadaali jiray ee uu uga badin jiray intii caadada u ahayd oo markaa halkay Soomaalidu yiraahdaan guntigu hebel dhiisha iskaga dhigay yani waa uu xaydxaytay waa u faytay inuu arrinka qabto culimada badna waxa ay ku fasiraan oo ay leeyihiin shadul mi'zarku waxa weeyaan mubaahaadkii oo laga tago oo waa maxay haweenku ka dheeraan jiray weeyaan dawaa i'tikaafi jiray qofka mu'takifka ana waa maxay haweenka de loo batago wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fi almasajid ba ilaahayna haweenka haw galmoonina idinkoo maxay masaajida ku i'tikaafsan idan tobankan inuu cibaado u xidhxidho waxa ku tilmaamaya wax waqtiyada kale mubaax ahaa ama cibaadaba ahaa haweenaydaada xalaasha aad ku qabtay inaad u tagtaa waa nooc min alcibaada أجر بالله سيقول قرابو النبي عليه الصلاة والسلام لكن طبعا كان عبادة كفضل بدن ما الرباينة تصبيسو طبعا كان عبادة كفضل بدن له سيدا أوجد بو حتى هوانك بو كهجرون شرو اعتكافي شرو مركا وحي تلماميسا حتى وحيابي مباحاتك واعتكافكم مركا وامحي اعتكاف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان ابن عمر حديث كوريني وقت المام النبي عليه الصلاة والسلام وحو اعتكاف شري طبعا كان رمضان والضنبايا عائشة وطلع كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده حديث صحيحين كويا الله النبي عليه الصلاة والسلام واعتكاف شري طبعا كان رمضان وقدم بيا إلى أن تكلمني بلادي كما تجين
isaga dabadiina bay tiri haweenkiisa i'tikaafi jiray i'tikaafku word kooban haddaynu ku tilmaamno macnaheedu waxa weeyaan qofku inuu cibaado isu xidho oo mubaaxaadkii ka yimaado intuu masaajidka yimaado inuu yidhaahdo ka bixi maayo masaajidka oo muxuu ka yimi markaa waxyaabo badan oo mubaax u ahaa haweenkiisii uu ka yimi haddaad haweenkii ka timi maxaa kale la rabaa inaad ka tagto waxay culammadu yidhahdaan fuduuli alkalaam wa fuduuli alطacaam wa fuduuli الnawm waxaasoo dhan waa inaad ka tagtaa bay yidhahdeen waa inaad iska daysaa cunada badnideeda cunadu hadday kugu badato culayska kugu badanaya iyo hurdada iyo wax lamida yarayso hadalkana jooji hadalka waxaan wardi iyo cibaado ahayn ka bax dadka badh baa intay ictikaafaan sheeko uun bilaaba oo maad suuqaaga iska joogta haddaad sheekaynayso haddaad sheeko u wadi lahayd qolaa internetka iska soo daba rarta oo intuu ictikaafo ayuu internetka wadaa oo haddaad webpage-yadii iyo wixii gelayso maad magaaladaba u shir tagtid ilaa waa shirkaysiin huni asalku waxa weeyaan ictikaafka macnihiisuba waxa weeyaan wixii markii aad joogtay mubaaxa iska ahaa baad rabtaa inaad ka tagto oo xaggaad ku socotaa waxaad rabtaa inaad gaar u noqoto cibaado waxaad rabtaa inaad 10 habeen iyo 10 maalmood gaar u noqotid shaqadaadu inay noqoto maxay inaad cibaadaysato maraad taagantoo tukanayso maraad quraan akhriyayso maraad wardinayso maraad nabiga ku sallayayso calayhi salaatu wasalaam inuu wardi ahaado waxaagu bilbalaayiin walmalaayiin inaad wardigaagu noqdo 10 maalmood oo halkaad sheekayn lahayd ama war kale akhri war xataa culamadii muslimiinta hore ma taqaanaa culamada badhba ramadaanta xataa waxay joojin jireen kutubtay akhri jireen kutubtii la akhri jiray kitaabku soo maaha wax khayr laga helayo culamada badhba kutubta joojin jirtay imaamu maalik waxaa la sheegaa xataa xadiidka uu dayn jiray xadiidkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam akhriskiisuu dayn jiray qur-aanku buu bixi jiray waxay odhan jireen bishani waa bisha qur-aankay odhan jireen dabeetana cilmiga kaloo dhan meel bay iska dhigi jireen cilmiga qur-aanku unbaa bay soo reebi jireen idan meesha raggii ragga ahaa uu kutubta cilmiga intuu ka tago uu xagga qur-aanka usii guurayay ama wardiga usii guurayay haddaad adiguna xagga sheekada usii guurto iyo internetka waa mid subxaanalay soo baxaysaa marka ictikaafkeenu uma ekaanayo ictikaafkii raggaa hore ay ictikaafi jireen haddaba nabigu calayhi salaatu wasalaam sanadkii uu dhimanayay 20 baabuu ictikaafay baa la yidhaahdaa 20 إمام الزهري بقى ولا شيء عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله نبي كما تجيب يرسو مدينة ويمي إنه معتكف في هاي إذا طبعا كان هبين إن هذا اعتكافته أو ورديده أو قرآن أخردت أو صلاة كتيت أو هبين يا معلم بمساجد كتشوكتيت أيها هبو waxaa kaloo sii muhiima inaad de habeenkii baadi doontid khatarta ahaa laylat alqadr oo uu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam 10 dambe in laga baadi doono oo uu haddana yidhi iltamisuuha fi العشر الأواخر waltamisuuha fi kulli watrin buu nabigu haddana fi kulli witrin war 10 dambe ka raadiya oo haddana waxaa ka sii raadisaan buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam habeenada witrka ah habeenada witrka ka sii raadiya oo maxaad qaban Aisha waxay tiri oo ilaahay hadduu ila kulmiyo maxaan yeelaa xadiidka ibn Maaja iyo Tirmidhi ba warinayaan Sheekh Albani saxiix ayay sheegay wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam quuli allahumma innaka cafuwun kariim tuhibbu alcafwa fa'fu canni waxaad tidhaahdaa allahumma innaka cafuwun tuhibbu alcafwa fa'fu canni ilaahayow mid wax cafiya baad ee cafi dheh oo cafigana jecel ee rabbow cafi dheh idan habeenkan si aad u raadacayso baryada ilaahay badi waa habeenku nabigu leeyahay fiihi laylatun khayrun min 1000 shahrin man xurima khayruha faqad xurim xadiidka axmed iyo nasaa'i ba warinayaan sheekh Albani saxiixa ku tilmaamaya waa habeen
كم بلود كخير بدن سيدا قرآن كما شاقيد ومن حرم خيرها فقد حرم بالنبي هبين كا نكا خير كيدا وايا هبين كا خير كيس نكا وايا كاسي خير بوا وخير بالا خير بالا ياشا سيانا تقبيري هبين كان رادعين بل كم بلود عبادته تضب بيسيه هدي أت شقالة هاي أولو يراهدو طبعا مالك هم إذا هدات سفي عنو شقيسيد كم بلود مشاهر كود بالغو سيني بحد سوي لها الدوع وينو كلام الله مشيكي وأنا شقالة هاي مسكينو $1 $5 $7 وحقاطه دبتنا waxa lagu yiri 10 kana casho maalan baa ku jirta hadaad si fiican u shaqaysid kun bilood mushaharkood baad qaadanaysaa kun bilood mushaharkood waa imisa dee waa pension baad galaysaa cimrigaaga inta ka hadhay waa 380 iyo dheeraad 380 sano iyo dheeraad weeyaan haddii ba ay shaqadu markaa ku xidhantay mushaharka gabigiisuba haddaad 10 ka casho maalin ka dhex raadisid haddaad si fiican u shaqayso pensionka aad qaadanayso oo fadhiga lacagta ku imanayso bal ka warran markay janno tahay haddaba waxaa la helayaa iyo acmaasha iyo khayrka la helayaa markay tahay jannooyin ka warran sidaa ogeed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala si laynoo dareensiiyo habeenkan fadligiisaa layna yidhi kow war waa habeenku qur-aanku soo degay baa layidhi innaa anzalnaahu maxaa ku xiga fii leylati alqadri leylatu alqadri khayrun من 1000 شهر وهبينكي إلهي سبحانه وتعالى وأدورتي هذا الكيسة وآدنها كلها هضلية وحوق الشيء إنه سودتشيو وهبينك القرآن كل شيء كم بلوت ودور يسيديتا سنادات وسدح يسيديتا سنة وحكا بدن بلا دير سدح يسيديتا سنة سيدو لمديه يعني وحويا صلاة هبين كنتو كتا سدح هي سيدات سنادات صلادات كون بلوت صلادات كوريس يودي قطع وردي داين تاسو دغميا يعني عمل كخير كاد شقيستا عمل لشقين يدور يا سيدات سنادات بو محي ايو لا فضل يا دغميا الهي وقت المامي هبين بركيسين وي هداد انو بركه رادينيسو سومالدو بركه دونتا سوماها حبالا ولا سو بركيستا ماشي ولا بركيستا بركه للرادينيه هداد بركه ربطه إنا أنزلناه في ليلة مباركة بإلهي هبين بركيسن هبين كم بقى الرادي وهبين ملائكة سودكته جبريل له سودكته حتى جبريل ملائكة ودبا سودكته وقدر كان القدر ولما المفسرين قال بابا شيغا إن يتهي من الضيق عديدة يتهي وحنفلا يا عالم كل لغوي هي خليل ابن إبراهيم الفراهيدي سيدو شيغا خليل بن أحمد الفراهيدي سو شيغايو ان ضيقي عيديدي كو فسري وحولي ملائكه دبو عيديدي كو نقدا اذا ملائكه يدك في عنابه سو دغا وهي السلام با الهي كتلمان وهبين نبد قاليو شيطاني انت حمها ودودن با لغا نبد قلا وهبين مقادير تصنت كسو سوقتا فيها يفرق كل امر حكيم مقادير تصنت كسو سعودو دن لا سو قرو ملائكه لو سو ديبو وهبين النبي محمد عليه الصلاه والسلام النبي يقول من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حديث صدح شيب تلمامي قفك رمضان صومه ايمانا واحتسابا اسقو يقينسن او رميسن او مخلصه وطاعه لو اخلاص سمينيا واحتسابا حساب صنيا الهي وعدي سي وعيدكي سنه رميسن دبي سهر لا دافا نيجا رمضان تتكدا هبينده اسقو ايمانا واحتسابا دبي سلا دافا هبينك كان سيجاره نيجا تكدا هبينك ليله القدر نينكا تكاده ذنبيسي با لا دافا بالاي غفر له ما تقدم من ذنبه اذا ايها الاحبه وهبين كاسي قدر كيسي ويهي
uu baahan yahay qofka muslimka ahi inuu xoog u raadceeyo. cibaadaadka ugu badan ee tobankan la sameeyay culimmadu tilmaamaan waxaa ka mid ah qur-aanka oo akhriskiisa la badiyo. qur-aanka oo akhriskiisa iyo tadabburkiisaba la badiyo. waayo ilaahay bishan buu u doortay inuu soo dejiyo nabigana calayhi salaatu wasalaam. jibriil baa intuu u yimaado bishatan qur-aanka la akhriyi jiray oo la daraasayn jiray. sanadkii u dambeeyeyna 2 goor baabuu jibriil la daraaseeyo ku dul akhriyay. culammadii muslimiinta ahayd ee ka dambeysayna waa ku dadaali jireen inay qur-aanka akhriskiisa badiyaan. kow dee wax lagu wardiyey horta qur-aanka waxyaaba ugu fadli badan ah oo waa kii xadiidka nebigu ugu tilmaamayay qur-aanka xaraf xaraf baa loo tirinayaa maxay akhriskiisa. alif ba ta tha alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin saasaa lagugu tirinaya. 140 ay faatixadu ka koobantahay xaraf macnaheedu waxa weeyaan 1200 oo ajaraad yeelanaysa markaad faatixada qura akhrido. idan qur-aanku wax lagu wardiyo buu u fadli badan yahay, aakhirana wuu shafeecaya. walidalik ayaa salafkii ummaddatani waxay xoog ugu dadaali jireen inay qur-aanka in badan dhammeeyaan bisha ramadaan. waxaa laga sheegaa alaswad ibnu yaziid inuu musxafka markiisa caadiga ah 6 habeenba mar dhammayn jiray. ramadaan hadday soo gashana 3 habeenba mar buu dhammayn jiray bay yidhaahdaan. haddii 10ka dambe soo galana habeen kasta mar buu dhammayn jiray. yacni waktiga caadiga ah subxii qur-aanka buu ku dhammayn jiray. ramadaanna 3 habeenba mar buu dhammayn jiray. 10ka habeenee dambena habeenkiiba mar buu dhammayn jiray. imaamu shaafici isaga waxaanad malaynin baa laga sheegi jiray 60 khatmo buu akhriyi jiray bay yidhaahdaan. imaamu madhabkan shaaficiyada soomaalidu haysataa 60 khatmo ayuu ramadaanta akhriyi jiray bay yidhahdaan. 60 goor buu dhammayn jiray. dadminis habeen iyo maalin kasta 2 jeer 60 khatmuu dhammayn jiray. waa maxay? waa wax hayru caadiya. وهذا سوكي حديث صار نهي والنبي ودي عبد الله بن عمرو بن عاص صدح وحكى بدن. الحافظ ابن حجر الحافظ ابن رجب اسوافتشنا يا وحليه أن النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 إنما هو على الوجه المعتاد. سدح بين كيرنا القرآن كالقرآن ما ينوى وجه معتاد كاه. أما في الأماكن الفاضلة كمكة لمن دخلها أو في الأوقات الفاضلة كشهر رمضان والعشر منه فلا يكره وعليه عمل السلف إليه. عليه الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه قراءة عادية وقفك مسلم كي سنة كيس عادية آخر سنة يمفعنا صدح كير إنه كل مية لأن كنت تدبرته ووفر ستابع الروح. أما أبو ليك سوى وجهك معتاد كي هدي هذا ما كنت فاضل كاتكتو مثلا مكوكا لا تكتو هذه يرجوبيسو. أما أوقات فاضل كي يسوق شو سيدا بشهر رمضان وكله أما طبعا كعشاء وقدام بيو كله كراهية ما أبو لي إنك كبد السيد وصدح خير إنك كل ما يسيد سيدا سان قدر يريدوا لي عمل في سلف صالحة. يعني ده كبد إن هذا لك وأنت علماء يدين شيء يسوون بأننا كل عليه. أنا قال رباهم ما دام إيمانك كوبي على باطن هيدا هبين بتجي لقى يا بين السداد دون هردي أما السجال هردي وبضته إن ندين رجاليه سئ آخر دينية حق سجينية عمل كينا ونكسن ودر درج لسان وورد راتنا وحي ذنوبه يوحي مباحاته دم بيسجى ما بهذا الهينة وحيابهم مباح إسكاها شاكدي وركي بدنائي هرددي بدنايدي وحا انت تصوير ريسو بل سيدادا هبانا هرايا مسا قال كان هبانا هراي رقا انت نسكر دقل رقا بالرقي هران كده بطقل سلف الأمة يسيو نغم بشرين والتصبيح تحميد تهليل لا حول ولا قوة إلا بالله صلى النبي عليه الصلاة والسلام قرآن أخرس يوحي لمد الصلاة
aan isku dayna inaan badinno warkaygu galabta intaas buu ku dhan yahay sala allahu calaa muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan hore ogaad wixii faahfaahina kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda haboogaani dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra